السلام عليكم وعلى كل دواء automatic اقرا برنامج كي speaking كيد كعاونية مقعيق هو أحمد خضر كوتش أحمد سيارو برنامج كان وحويان برنامج هذا اقرا كولج بيحسه السيدة برتياشة لو عاويو speaking هذا ربتين speaking لو عاويو program كما لو قلت لك عليه وايحي حاجة واحد لا شوكتا كوتش سجل أو كميدا supervisor team كوتش صدوا وندو هاي كوتش أحمد thank you. thank you so much وايحي أنت أنا بلعب شرحات واحد دوني يدين شيء واحد 10 كم تشران تليجرام جروب automatic اقرا programkaasi wuxuu ku jiraa waa group kamid ah groupyada telegramka marka casharada oo laga yaabo in isweydiisa xagee casharada ka heli kara casharada waxay ku jiraan applicationkeena iqra college haddaad android phone sidatid waxaa ka heli kartaa play storeka haddii aad iphone sidatidna websiteka ka helaysaa marka wax cashara hadda xaggan kama helaysid telegramka gudihiisa haddaanad casharaantii helinna waana la soo xiriiri kartaa sida xaggaa kaaga caawino haddaba waa maxay saddexdan group haddaanad ku jirin saddexdan group فضل نوصل شيء سدح ذا جروب وحي كليهين إما كان شرحيا مركب هو حكى بلا كان دحى كان واحد على information exercise group مركب 10 كي صوت دعوتي أو application جديد سكسر دعوتي أديكو بوجا جي دفتر بوجا جي ستة صوت دعوتي معلن كوح شرحيا بوجا جروب كما سوقل هذا مركب 10 كواد دعوتي information group وحرية group كني وحال صور دجاون ليلس يدي قرالكي وحي لقصو شقيني إسلام مركان الدجيسي بوجا للصعدي iyo waxaas la soo dhigaa marka xagan ba ka soo qoranaysa wixii laga rabay in ka soo shaqaysid haddaba groupka maadaama uu xidhan xagan soo dhiga casharkayga laga yaabo in isweydiinsid waxa soo dhigaysaa groupkan kale la yiraahdo feedback groupka macallimiintii baa ku jira ardayda kale ku jirta xagan waxa soo dhigaysaa casharkaagii intaad soo qortid ayaad sawir ka soo qaadaysaa buug daftar ku soo qortid soo dhigaysaa groupkan haddaba codkan waa soo raacinaysa haddana waxaa odhanaysaa assalaamu calaykum magacayga haba waxaan doonayaa cashirkaa kasoo baxo marka cashirkaa soo dhigaysaa macallimiinta kaa dhegaysanaya lagaa saxaya qoraalka lagaa saxaya okay haddaba videogan waxaan ugu talagalnay sharaxaadiisa inaan macluumaad idinka siino groupkan saddexaad la yidhahdo automatic iqra kaasa imika insha allah sharaxi doonaa okay laga yaaba in isweydiinaysid aaway macallinkii anigu weligay online kumaan dhigan wax kumaan baran waxaan ma fahansanay way igu cusub tahay macallinkii aaway dadka kala duwanna waayo waayahay saddexdii group ma xasuustaa laba ka mid ah waa kuwan feedback groupka macallimiinta way ku jiraan macallimiinta waxaa ka mid ah macallin cabdinuur macallin anwar way badan yihiin macallimiintu kuwaas ma ku jira groupka automatic iqra wax macallinna kuma jiraan haddaba yaa ku jira waxaa ku jira advisors coaches group supervisor aduu waa dad ku takhasusay amba ku dadaala inay dadka ka caawiyaan speakingka waxay barteen khibradda dadka sida looga caawiyo speakingka advisors waxa weeyaan la taliye coach waa laga yaabaa in garanaysa waxa weeyaan tababare and supervisor teamki sida coach saga marka xogta iyagu hayaan daatooyin iyo system badan intaana sharaxaadda wax sii wadin waxbaan idin ka codsanaya waxbaan idiin daraya imikaba haddaanad sameyna videoga jooji imika samee insha allah haddaad ku jirtid barnaamijka ka tirsan tahay in badanna wayna caawinaysaa adigana way ku caawin doontaa iyo waxbarashadaada taasi waxa weeyaan inaad telegramkaaga gashid oo magacaagu saddexan oo saxas bedeshid coach sagal soo dhawow waa maxay muhiimadda leedahay inuu qofku magaciisa saxa ugu qoran tahay telegramkiisa aad u mahadsan tahay coach magaca inaad ugu qoran yahay qofka waxay ka saacidaysaa ama ay naga caawinaysaa dhammaan anaga teamkayga inuu qofkiis la helo informationkiisa saxa so markaas qof kasta oo walaalo waxaan kugula talinayaa inaad magacaaga saxan aad isku diiwaangelisay markaad iqra kusoo biirisay aad ku qorato telegramka weliba waa isagoo saddexan sidoo kale aad joojiso bedelka aad badbedelaysa magacaaga kaasi wuxuu ku keenaya haddaad magacaagii anagoo magac kugu og oo telegramka magac ku og tahay aad bedesho inay miskrowdo ama aan lagu aqoonsanin qofkaad tahay good waayahay haddaba sidee loo bedela magaca waxaad galaysaa telegramka marka telegramka gashid waxaa arki doontaa xagga ugu sareysa bidixda saddex lead oo isdul saaran haddaad taabatid telegram saddexdaa lead waxaa kuusoo baxaya menu yar amba daaqad cusub oo loogadaadii amba profile sawirkii kuu muuqan doono iyo waxa magaca iminka kuu saaran haddaa kusii dhufatid waxaa kuusoo baxaya meel kala yaroo oo informationkii amba settingskii haddaad soo dhawaysid waxaa arki doontaa koonaha midigta saddex dhibcood oo isdul saaran kaa haddaad sii taabatid edit name baa kuusoo bixi doona magacaaga bedel edit name waa kaa tusaale magacaagu saddexan oo saxa ku qoraysa xagga markaa tigtaasa taabanaysa siduu systemka u xasuusto markaa saasaa magaca loo bedela okay haddaba aan ku noqono groupkan automatic iqra maxaa haddaana cashir laga dhiganayn amba cashir lasoo dhigeen maxaa laga dhex qabanaya laba shay baa la qabanaya simply number 1 waa tasks number 2 no calls tasks waxa weeyaan shaqo laydiin diray maalin walba wax laydiin diray oo kasoo shaqaynaysid cod soo duubisid callsna waxa weeyaan inaad dad wacdid oo calls la samaysid practice taskan ku bilaabaya
taaskiyada waa kuwan sidan bay waagihiin taaskiyada waxa adu mawduucyo kala duwan lasoo dhigay kelmadda task waxa weeyaan hawl amba shaqo laydiin diray qofka hadduu rabo inuu wax barto wuxuu baahan yahay in wax badan loo diro oo kasoo baxo training okay marka taaskiyada waa cod ahaan baad soo duubisa feedback baa laydinka siinaya marmarka qaarkood amba jawaab celin wixii aad soo duubtay ayaa wax laga sheegaya okay macluumaad laga bixinaya callskuna shayga labaad samaynaysa waa callsku bartayaasha kale groupka ku jira iyo macallimiinta kale groupka ku jira calls baa la samaynaysaa practice supervisor teamka idiin sheegaya waqtigii aad callska u leedihiin marka sawir baa kasoo qaadaysa screenshot waa kuwan dhowr bartayaasha oo si fiican sawirkooda callskii sameeyay deetana screenshot kasoo qaaday marka ardaydaas saasay sameeyeen okay haddaba maxaa helaya haddaan waxaas una sameeyo waxaa jira reward system amba nidaam amba hab abaalmarina oo abaalmarintaas oo ay tahay in lagu soo waco oo practice lagula qaato dad kala duwan oo ka mid ah dad luuqadii ku dhashay oo native oo practice-ka ka caawinaya iminka in badan baa waxaad soo sameynay waxaa aragnay maasha allah dad badan oo isku bedelay markay calls fara badan heleen kalsooni ku heleen luuqadii maaha luuqadun grammar barown waxa weeyaan wixii la isticmaalo grammarkii baranaysay okay haddaba waa laga yaaba in isweydiinaysay waa maxay sideen u heli karaa in laysoo waco maxaa layga baahan yahay waxaa raba in laysoo waco waxaa raba in calls helo maxaa layga baahan yahay dad kala duwan baa kusoo wici doona insha allah waxaa jira sharuudo laakiin ma layska kaa soo wacayo ma garanaysaa waxaa u baahan tahay inaad sharuudo kasoo baxdid waa maxay sharuudahaasi haddaba sharuuduhu english waxaa lahahda requirements waa sharuudaha ka koowaad shuruudda koowaad u baahan tahay inaad kasoo baxdid waxa weeyaan waxa lahahdo tasks waan idiin sheegay 3 cisho oo isku xidhiidhsan ayaad u baahan tahay taskiga kasoo shaqaysid 3 cisho oo groupku furan yahay oo isku xidhiidhsan ayaad u baahan tahay taskiga kasoo shaqaysid adigoo codkaaga soo duubiya oo markaa soo dhigaya magacaaga saddexaana soo qoraya marka taskigaaga soo dhigtid sida teamkeenu u arkaan taskiyadu way kala duwan yihiin elementaryga kale kan waa kan task ka mid ah classka elementaryga task ka mid ah classka intermediate-ka waxa weeyaan talk about your favorite book oo kale waxa ka hadlaysa waxyaabahan oo kale mawduucyadan task ka mid ah classka advanced-ka talk about your future plans taskiyadu markaa way kala duwan yihiin maalin walba groupka furaya mid baa lasoo dhigaya kasoo shaqaynaysa insha allah sharuudda labaad requirementka labaad lagaa baahan waxa weeyaan waa maxay waxa weeyaan write or say the taskii iminka soo sameynay in gratitude form waa inaad soo qortid codkana soo raacay waan jeclaan lahayn inaad codkana soo raacaysid laakiin waxaa soo qoraysaa taskiga meel yaroo taski walba waxaa la socda meel yaroo ku qoran tahay I can xagga ugu hooseysa haddaad eegtid task walba waan soo dhignaa I can give waxaan awoodo waxayna sameeyo marka kaasaad soo qaadanaysaa waxaad ku soo qoraysaa hab oo nidaam schoolku iska leeyahay oo la yidhaahdo gratitude form gratitude waa mahadnaq ha ka warwarina anaa idiin sharxi doona in tusi doona laakiin muhiimad waa ina soo qortid haddaad doonta in codka soo raacaysidna way kusii caawinaysaa aan idiin sharax haddaba waa kan haddaba task ka mid a taskyada lasoo dhigo inta hoosada eegtid waxaa arkaysaa I can present the opinions and ideas I have prepared wixii I can ka dambeeya ayaad soo qaadaysaa oo meel ku qori doonta insha allah marka waka I can intaa ka dambeysa I can waxa weeyaan waxaan awoodaa waxaas baan doonaya soo qaadid oo meel ku qortid sababtana waan idiin sheegaya waa kan haddaba habka baa la yidhahdaa gratitude form gratitude waxa weeyaan mahadnaq okay marka waxaan arkay intan macallin ahaa dadka dabeecadooda ay ka mid tahay ay ku jirto inay in badan u mahadnaqaan ilaahi waxa dhacaa dadkaasi way guulaystaan badana markaas habkan baa soo qaadaysa intaa yara I can ka soo qaadaysa xaggaasaa gelinaysa intan yaroo idiin baneeyey marka waxaan doonaya in tusaaleyn siiyo waa kan today I am grateful for not having to not be able to see maanta ilaahay waxaan u mahadnaqaya ama u mahad celinaya grateful waa mahad celina maxaa u mahad celinaya inaanu iga dhigin amba inaanu igu khasbin maxay inaanan awoodi kareen inaan arko dad baa jira aan awoodi kareen inay arkaan xaaladaasi ku jiraan marxaladee inaanay arkeen aniga adigu laakiin dadka badan way arkayaan marka ilaahay naguma khasbin alxamdulilah marka not having to waxaa inaanan lagu khasbin maadaama sidaa tahay waxaa laga wadaa inaad arki kartid in ilaahay u mahadnaqdid fa in shakartum la aziidanakum inta macallin ahaan waxaan arkay dadka ardayda badana i mahad celiya aniga oo alxamdulillahna yidhaahda macallimiintooda u mahad celiya dadka wax u qabtay u mahad celiya ilaahay maalin walba u mahad celiya waxaan arkay inay dadkaasi si fudud u bataan anigu ma garanaya sababta laakiin waxaan garanayaa inay in badan guulaystaan oo markiiba luuqadana fahmaan maxaad u malaynaysaa sababta
waxaas waa aaminaada oo qofkaasi u aaminayso shayga aaminaada la yidhaahdo waa shay aad u fiican tahay caawimaantiisu ama waxyaabo badan ku saacideeya okay good ha markaas task walba samaysid waxaad samaynaysaa tusaale marka waad soo qaadaysaa taskigii intaa yara hoose soo qaadaysa ku qoran xaggaasa soo dhigaysa okay marka tusaale mid baan soo qaadaya waa kan intan yaroo ku qoran tahay I can present the opinions okay marka intaa yar waxaa la dhahdaa I can intaa yaroo waxaa soo qaadaysaa I can statementkii intii yar qoraalkii xaggaasaa dhex gelinaysaa simply soo qaad markaa wakaa intaa yar inta ka dambeysa I can present the opinions and ideas I have prepared intaa marka soo qaadid oo soo dhex gelisid saasay u ekaanaysaa wakaa inta xaggaa lasoo geliyay maanta waxaan ilaahi u mahadnaqayaa inaanu igu khasbin amba inaanu iga dhigin qof aan awoodi karaan amba inaan awoodi karaan maxay to present the opinions and ideas I have prepared in English inaanan hayn qof dee awoodi karaan inuu soo jeediyo fikradihiisa iyo raygiisa uu diyaarsaday isagoo Englishka isticmaalaya dad badan baa jiray marka dabadda u baxdid waxaad arki kartaa dad badan oo haddaad ku tahay soo jeedi bal fikradahaaga amba raygaaga adigoo English isticmaalaya kuma hadli karaan ma sheegi karaanna laba sentence laba erey bus kuma geen karaanba marka adigu inaad samayn kartid waa wax maaha wax iska adiga ku yimi waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu adiga ku siiyay oo marka waa nimcooyinka Ilaahay kamid tahay marka alxamdulillah marka maalin walba saa samaysid waxaan arkayaa inaad taskiga ardayda u fudaato insha Allah dhinacana waa ku dadaali doontiin marka saasaa la idinka baahan yahay waa ka mid kale elementaryga intaa ka dambeysa I can give a description about a book waxaan awoodi karaa inaan macluumaad ka bixiyo buugan akhriyay marka taskiga qof kasoo shaqeeyo uu soo duubo intaa yarna dee uu xaqiijinayo kale uu qiranaya marka xaggan waa kan soo qaaday maanta ilaahay waxaan u mahadnaqayaa inaanu igu khasbin iga dhigin inaanan awoodi karaan inaan bixiyo macluumaad oo ku saabsan buugan akhriya anigoo Englishka isticmaalaya adeegsanaya dad badan baa jira la bal buuga iga waran English isticmaalna ma samayn karaan Soomaaliya laga yaabaa in kugu sheegi karaan bal luqad kale laakiin adigu waa samayn kartaa so keep going waxa la yiraahdaa gratitude form inta yar meel ku calaansada videoga joojiye meel ku qorta hadan tusaale yar ka bixiyo anigoo mid qoray saaka waa kanba magacaaga ku qoraysaa date-kii taariikhdii saas u soo qor sidan u soo qorba today I'm grateful for not having to not be able to present the opinions and ideas I prepared in English waa intaasba okay simply saas u soo qor so wax saasi weyn maaha inta hore waa title aad isticmaalayso markaste marka loo eego ilaa xagaas waa title aad u isticmaalayso so inta dambe markasta waxaad qaadanaysaa on taskiga aad maalinta qaadanayso mawduuca yar xagga hoose ku qoran ayuun bad xagga ku bedelaysaa so wax saasi culus maaha yes wax adiga aad ku culus maaha faa'iido weyn waan ku aragnay trust me haddaad macallimiintiina nahayn nagu kalsooni qabtiin intan haddaad samaysiin wax weyn baa arkaytin isbedel weyn insha Allah okay so shuruudda labaad shuruudda saddexaad waxa weeyaan inaad la hadashid arday kale ama bartayaasha kale groupka ku jira shuruuddan dad badan baa yiraahdaa anigu ma baahni dee in qofka la hadlo waxaan rabaa macallimiinta kaliya la hadlo ma rabo in arday kale la hadlo dee taasi wallahi horta waan dareemi karaa waxa sheegaysid laakiin faa'iido badan baan ku arkay marka ardayda iswacaan isla hadlaan community baa samaysmaa marka calls waxa sameynaysaa qof kamid groupka ayaa waxa soo qoraysa fariin yar xoranaysa I'm ready to do a call marka groupka furan yahay waxa oranaysaa who's ready yaa diyaar in call practice la sameeyo qof kale ku soo qabanaya marka waa soo wacisiin WhatsApp-ka nambarada kala qoransiin WhatsApp-ka soo wacisiin markuu ilaa 10 daqiiqo marka mariso screenshot ka qaad call-ka groupka soo dhig marka groupka soo dhigtid feedback-na ka bixi tusaale marka waa kan inankan Cabdi Axmed qof kale la hadlayay tusaale haddii anigu la hadlay Cabdi Axmed groupkan soo dhigay waa ka Cabdi Axmed baan la hadlay feedbackna ka bixi adigoo qoraa yar u soo qoray xagga hoose thank you Cabdi Axmed thank you wallahi conversation keen aad buu fiicnaa adigoo English ku hadlaya our conversation was great you're a great man mashallah you want to be a veterinarian you're doing great you can do good in life I believe in you isdiirigeliya meesha waxa loo baahan dad isku dhiirigeliya inay luqadda u fududahay sidii ugu fududaato ka wada iyo inay community yeelano ma garanaysaa insha Allah okay and okay marka ardayda dad qaar bay raadaan anigu de qofna ima soo wacayo mar walbaan dadka la xiriiro lama soo hadlayaan fariin baan dhigaa anigu laakiin lama soo hadlayo haddaba talaan ku siinaya waxa weeyaan haddii aad tahay qof firfircoon oo isku daydid inaad qalbi wanaagsan lahaatid oo isku daydid inaad dadka soo dhawaysid oo isku daydid inaad isdul dhigtid inaanad han weyn isgelin oo inaad aamintid inaad dadka ka wanaagsan tahay oo kale waxaasna iska daysid waxa dhacaya inaad dadku ku soo wacaan adigu dad badan heshid calls badan heshid
marka waad samayn kartaa dad badan way sameeyaan dad fara badan baa systemkan raaca waad samayn kartaa adiguna waa ka kaasi callski haddaba laga yaaba in isweydiisa maxaan ka hadlanaa maalmaha qaarkood supervisor teams waxay soo dhigayaan mawduucyo ka hadli kartid inkastoo any topic ka hadli kartid muhiimaddu waa inay english ka isticmaali kartiin marka kanoo kale waa isticmaali kartiin kanoo kale wuxuu kaa caawinayaa inay kaaga fududaato halkaad laga yaabo inaad 3-4 topigaas taqaanaan so dee qof kasta arday buu saahan jiray laga yaabaa ina maalmaha qaar aad tirahdaan kan waan ka hadalay laakiin laga yaabo ina mawduucyadan hore u arkin kan ku jiraan sidoo kale waxyaabo aad isticmaali kartaan sida su'aalo qaabka u dhigan yihiin oo kale ay ka caawinayso ereyo badanna faa'iidi doontaan yeah absolutely marka ma ahayna khasab su'aalahan oo kala raadid ama su'aalaha supervisor soo dhigaan laakiin waxa doonaysa baa ka hadli kartaa intaas muhiimuna groupku wuxuu leeyahay waqti furan yahay xiran yahay sababta saa uga dhignan waxa weeyaan waxaynu waxaan rabnaa inay on time noqdaan marka shuruudahoo dhan soo buuxiya on time haddii kale ma heli sida abaalmarinta insha allah waxaan kula rabaana in abaalmarinta heshida calls badan lagu soo waco saa ula socda xagga dambe ka taaban doona insha allah shuruudda ugu dambeysa waxa weeyaan give a weekly podcast feedback from a weekly podcast marka toddobaadkiiba 2 jeer amba hal mar waxaan soo dhigaynaa podcast anigiyo coacheska ama macallimiinta kale mawduucyo kala duwan ka hadlayna oo muhiima adiga ku khuseeya iyo waxbarashada luuqadaada waxaa samayn karta markaa waa daawanaysaa podcastka inta ka fahmisidba feedback ka bixi waxaasan ka fahmay adigoo qoraal soo qoraya waxaasan ka faa'iiday waxaasan ka maqlay haddana maca fahmayan wax alaalo waxaan ku hadlino in yar soo qor waxa u malaynaysa inaan ka hadlinay iyo wax ka faa'iiday taasina waa shuruud ka mid ah shuruudaha u baahan tahay inaad soo buuxisid 4 shuruudo weeyaan haddaba aan tusaale yar eegno kasoo qaadba waxaa jira qof amba member amba arday dhigta la yidhaahdo cali sidee markaa sidee wax u dhacayaan sidee wax u socdaan kasoo qaadba waa kan groupkii toddobaadkii salaasada khamiista iyo jimcaha groupku uu xiran yahay kasoo qaadba cali maalinta wuxuu soo dhigay taaskadiisii sidaasuu soo dhigay uu buuxiyey shuruudihiisii 3 cisho uu soo dhigay laakiin call lamuu galin arday kale waxaa la siinayaa cali maalintaas markii dhamaato groupka waxaa lasoo dhigaya 3 waxaa laga wadaa 3 uu buuxiyey shuruudii intii qaybtii hore waxbaa ka yara dhimanun waxaa ka dhimanun inuu arday kale calls lasoo qof kala waco markaasuu u gudbiya levelka labaad marka waa kan imika tusaale hadday halkan yara eegtiin waxaa arki kartiin qof xaggan ka bilaabay taaskii koowaad uu kasoo shaqeeyey taaskii labaad uu kasoo shaqeeyey taaskii saddexaad uu kasoo shaqeeyey qofkaasi wuu dhameeyey wuxuu u gudbiya markaa live callkii baa u hadhay shuruudaha kalena soo dhamaystirtid live call baa helaysaa saasaa loo sii wadaya marka tusaale xaggan haddaan iska siiyo waa kan cadina cali kasoo qaadba cali iminka taaskii 3 taas kasoo shaqeeyey hal qofna wuu wacay groupka ku jira waxaa dhacaya wuu ka wareegayaa intii qaybtii hore qaybtii dambe uu wareegayaa callkiina wuu helayaa marka saasuu sii wadaya waxaa loo soo qoraya cali marka 3/6 inuu 6kaas wuxuu calaamaday inuu ka gudbay darajadii koowaad uu callna helay laakiin only waxaa ka gudbisaa shuruudaha waxaa soo buuxinaysaa 3 task callkiina waa soo buuxinaysaa labadii shuruudo kalena hayloobina ina gratitude form soo qortiin qoraalkiiraan markii hore idin sharaxaya soo task walba raacsid hadda maalin taskiga aan raacin taskigaasi waa invalid ma shaqaynayo halkaasuu ku gubtay waa ina taskiga soo duubtay codkaaga adigoo taskiga kasoo baxaya isla markaana soo qortid gratitude formkii aan ii sheegay oo ilaahay umahadnaqisiin inaad taskiga kasoo baxday markaas ayaad gudbisaa oo 3/6 lagu qorayaa darajadii labaad u gudubtay isla markaana haddaad calaamad aragtid call waa heshay okay marka callskan callka ma ahayna samaysid sabtida arday kale ma ahayna wacdin sabtida haddaad doonaysid axadda wici kartaa haddaad doonaysid isniinta wici kartaa muhiimaddu waxa weeyaan 3 cisho gudahood maalin ka mida maalimaha 3 cisho inaad call samaysid arday kale la samaysid weeyaan saas la socda okay haddaad doonaysid taskiga kasoo qaadba sniinta bilowday labada kale cisho maad bilaabinba sniinta bilowday waayahay waxaa lagu soo qorayaa 1/3 inaad hal task kasoo shaqaysay laba kale ku harsan yihiin iyo dhowr shuruudo kale haddaa maalinta ku xigta Tuesday wuu xidhan yahay groupku salaasada arbacado kale soo dhigtay taskiga 2 jeer baa soo dhigtay isku xidhiidhsan oo groupku furnaa waxaa lagu soo qorayaa 2/3 ba maalinta markii dhamaato lagu soo qoraya group kala soo dhigaya maalinta saddex haddaad maalin marka maadaama khamiis jimcaha xiran tahay maalinta kale group kala furo sabtida haddaad taskiga kala soo dhigtid 3 jeer baa soo dhigtay 1 2 3 oo isku xidhiidhsan callkiina waa soo raacisay marka waxaa lagu soo qorayaa fariintii 3/6 baa lagu soo qorayaa marka waxaa helaysaa callkii koowaad advisor call 1 baa lagu soo dhigaya sidaa ula socda okay
marka callsku way kala duwan yihiin haddii aad si casharaanta caadiga ee iqra college bixiso aad isqortay dee waxaad helaysaa hal call baad helaysaa laga yaaba waxaad heli kartaa one call oo advisor amba coach kusoo wacayo haddii aad lacag bixisay oo kale darajooyin kala duwanba heerar kala duwan baa jira waxaad heli kartaa calls kasii badanba kolba waxay ku xidhantahay lacagta bixisay oo kale iyo dadaalkaagaba marka waa kaas 6/6 baa u gudbisaa markaad haddana saddexdii taas ku xigsiisid marka haddaad shuruudihii soo buxisid 9 baa kuu furmaya darajada kale marka dadka qaar baa ku dawaqad darajooyinka waa maxay sidan waa maxay tusaale imika haddaad taskiga koowaad kasoo shaqaysid 1/3 lagu soo qorayaa ka labaad 2/3 ka saddexaad 3/3 shuruudihii oo dhan intaad soo buuxisid 3/6 baa lagu soo qorayaa oo lagu soo wacayaa waa ka gudubtay marka 6kii baa gashay okay waa ka haddana darajadii kale 4/6 haddaad taskiga ku xiga kasoo shaqaysid 5/6 ku xiga 6/6 haddaad shuruudihii soo buuxisidna saddexdaa cisho 6/9 baa lagu soo qorayaa callna waa lagu siinayaa maalintaas call lagu siinayaa okay ka ku xiga waa sidaa 9/9 marka waan u kala qaybinay qofka dadkii waan idiin kala jajabinay sidaanan u niyad jabin maxaa la yidhaahdaa waxaan inta kolba idinka hadhay callkii baan kusoo qoranaa mar walba dad baa maalin iyo habeen waxaan ku jira oo u dadaalaya okay kaasa ku xiga kaasa ku xiga okay kaasa ku xiga kaasa ku xiga marka bisha markay dhamaato laga yaabo intaasoo call inaad heshay magaranaysaa intaasoo call baa oo qof baa la hadashay practice badan weeyaan isbedelaysa insha allah calls kala duwan baa lagu soo wacaya isla markaa waxaa dheer in lagu soo diro waxa la yidhahdo learner profile amba report yar oo ku tusiya amba ku siinaya macluumaad oo sidaad adigu wax u wadid imika waa kan sidan buu eegyahay waa 24 task nidaamkeenu programkeeni 24 task waxaa lagu qorayaa 24 task adigu waxa keentay tusaalaan si yara eegno kasoo qaadba waa kan taskigii learner profile kii ka wada lagu soo diriyay reportkaagii magacaaga lagu qorayay iyo maalinta bilowdid xagga waxaa ku calaansan taskigii koowaad adigu kasoo shaqaysay xagga waxaa lagu qorayaa darajadii lagaa rabay qofka markaa adigu bilowdid xaggana waxa keentay taskigaagii labaad xagga waxaa lagaa rabay baa lagu soo qorayaa xaggan waxa keentay taskigii saddexaad xagga waxaa lagaa rabay xagga waxa keentay haddaad shuruuda soo buuxisina call baa u leedahay xaggaasaa lagu calaamadaynaya so tusaale yaran eegno xaggan indila tusa tusaale example yar marka in yara samra waxaa rabaa intan si fiican u fahantiin wixii ka dambeeya dee idinkaa markaa wixii fahmiya oo ka fahaysan kartiin kasoo qaadba iminka arday anba barte la yidhaahdo yusuf waa ka yusuf cali wuxuu bilaabay February 13 xaggaasaa lagugu qoray maalinta bilowdid maalinta sidaa u bilowdid oo taskigaaga koowaad soo dhigtid waa kan qofkan xagga reportkiisa lagu qoray maalinta koowaad oo taskigaaga soo dhigtid 1/3 baa lagu qorayaa waxaa isla marka xaggan lasoo dhigayaa maalin kasta oo call leedahay marka waxay ku xidhan tahay maalinta koowaad oo taskigaaga soo dhigtid khalaas schedule baa lagu siinayaa February 19 call baa u leedahay February 23 call baa u leedahay February 28 call baa u leedahay March 6 call baa u leedahay intaasoo dhan calls baa u leedahay laakiin waxa weeyaan inaad shuruudihii kalena soo buuxisid okay time baa ku socona waxayna time okay so waa kuwan February 19 February 23 February 28 March waa kuwa waqtiyada waa eeganaysaa waqtiga callska u leedahay lagugu talagalay adiga kuu taala haddaad dee maalinta shuruudaha kusoo buuxisid haddaad kusoo buuxisid ka gaarsiisid waad helaysaa callska maalintaas haddaanad kusoo buuxina ma helaysid callska tusaale imika eeg qofkan 1/3 uu buuxi maalinta taskigii koowaad uu soo dhigay Yusuf maalintii labaad taskigii uu soo dhigay 2/3 baa loo qoray maalinta saddexaad 3/3 shuruudihii laakiin waa inuu soo buuxiyo waa ka shuruudihii uu soo buuxiyey waa loo calaamadeeyey maalintaas marka February 19 buu call u leeyahay waa ka yes baa loogu qoray xaggaas inuu call u leeyahay insha Allah marka reportkiina la idiin soo diro waa arki doontiin marka wuxuu u gudbiyaa 6kii 4/6 maalinta afraad fourth task 4/6 baa loo soo qorayaa hadduu sii wado 5/6 hadduu sii wado 6/6 shuruudihii soo buuxiyo callskii baa la siinayaa saasaa loo wadaa haddaba waxaan doonaya idiin sheego callska la idin siinayaa kala duwan laga yaabaa qofka markuu call abaalmarintaa helo callka dadka qaar haddii si free ugu soo biireen oo casharaantayni caadiga iqra college ay bixiyeen keliya qaybtan laakiin automatic iqra wax lacag aan bixin oo si free ugu soo gudbay oo laga yaaba inuu hal call helo laakiin hadduu tusaale lacagna bixiyey dadaal badan uu sameeyey waxaa jira heerar kala duwan oo callska kala duwan marka heerarku waxa weeyaan standard plus premium gold oo maxay kala yihiin waxani standard waxa weeyaan hal callka maalinta u leedahay hal mar baa lagu soo wacayaa mar kale laguma soo wacayo maalinta u leedahay maalimaha u leedahay baa lagu soo wacayaa plus waxa weeyaan
adeega plus waxa weeyaan maalinta u leedahay call mid kala lagugu daraya okay mid kala lagugu daraya waa lagula ballamaya ballan baa lagu qabanaya maalinta ku xigto kalena maalin kale aduu laba jeer baa u leedahay laba laab premium waxa weeyaan premium waxa weeyaan waa sidoo kale waa maalinta call u leedahay mid kala lagugu daraya laakiin marmarka qaarkood advisor baa kusoo wacaya midka labaad marmarka qaarkoodna coach ama qof luuqadii u dhashay ama luuqadii native ayaa kusoo wacaya okay halka balaaska kaliya uu kula soo hadlaya un advisories extra iyo callkaaga caadigaaba marka waxa lagu fahmay marka bilowdid nidaamka laakiin callkaaga caadiga waxa lagu raacinaya call kale oo lagu soo wacayo advisor ku soo wacayo qof luuqadii ku specialist ku laakiin maaha native marmarka qaarkood gold hada tayna waxa dhacaya callkaaga caadiga iyo laba call dheeraada maxaa la yiraahdaa mar walbana coach baa ku soo wacaya so callskaaga advisors ku soo wacayaan waxa sidoo kale lagu daraya qof coach ah ku soo garaacaya oo practice kula qaadanaya okay marka wakaas lacagta kala duwan heerarka insha Allah markuu programku sii dhamaanayso hadaad rabtidin amba iminka hadaad rabtidin ku sii darsatid calls waxaad samayn kartaa wala la saxiixin kartaa insha Allah okay haddaba sidaan idiin sii fahansiyo I think waad fahanteen boqolkiiba boqol laakiin in waxaan kusii daraya qofka maalinka ay dhaafto ganaax weyn baa jira waxaa rabnaa inaan maalin ku dhaafin marka ganaaxu wuxuu keenayaa inaad dadaashid sama kasoo qaadbo Yusuf wuxuu sameeyay taskii koowaad uu kasoo shaqeeyay laakiin ka labaad maalinta uu mashquulsanaa uu sameyn kari waayay maxaa loo soo qoray maalinta waxaa loo soo qorayaa 0/3 waxa ku qoran 0/3 baa loo soo qorayaa 0/3 xagaas lagu calaamadinaya marka maalinta ku xig uu sameeyay laakiin taskii saddexaad buu sameeyay taskiisii saddexaad waxaa loo soo qorayaa 1/3 wuxuu ku bilaabaya haddana dib uu bilaabaya tasksna way cayman yihiin limit weeyaan marka waa 24 task haddii mid ku dhaafto de waa ganaax weyn marka waxa dhacaya marka eeg 1/3 baa loo qoray callkii maalintii callkii uu lahaana lama siinayo callkii hadda laba call u lahayd saddex call laguma soo wacayo maalinta coachesku sababta waxa weeyaan maad soo buuxin shuruudihii waqtigii ama muddadii lagu qabtay lagugu talagalay so marka coach callka koobaad saasuu kugu dhaafay waxaad sugtaa waa callkaaga labaad iyo markaad shuruudda 6/6 buuxiso that's right saas weeyaan ha ku xisaabtamin inaad dadka qaar baa odhanaya anigu lacag baan bixiyey ama lacag badan baan bixiyey sidaan ku heli waayey laakiin waxana waa wuxuu leeyahay wax la raacayo ama rules marka qofku hadduu ruleska raacin cid kasta way raacdaa aad haba noqoto coaches ama ha noqoto advisors qofkii markaa ruleskaas wax ka khalda ama misgareeya sidii uu sharcigu u qabanayo ayuunbuu u dhaqmaya ama wixii lagu dhaahdo lagu xukumo ayuu sameynaya marka xukunkaagu wuxuu yahay haddaad wax misgarayso ifan xitaa haddaad soo qorin gratitude-kii oo laakiin aad intii kala samayso taas wuu ku dhaaftay yep marka insha Allah dadaalisi waxaan arkay qaar badan markay mid dhaafaan mid calls baa hal call baa dhaafay qofkii uu soo baraarugay uu soo toos xoray Allah mid kale dhaafin bal aan dadaal baa loo baahan luqadda marka waxay keenaysaa waxaan ugu kalafiyon inaad adigu dee xil saartid mas'uuliyad qaadatid ma rabna qof markuu mas'uuliyad qaato kale dabcan qofku hadduu dhaqmo sidiisii oo rabo horta inuu isbedel sameeyo waa inuu noloshiisa wax ka bedelaa so haddii aad rabto inay isbedel kugu yimaado isbedel marka hore adigu that's right okay aan sii wadno kasoo qaado markaa Yusuf kaas wuu ka gubatay taskii afraad buu kasoo shaqeeyay 2/3 baa loo qoray xagaas laga sii wadayaa taskii shanaad uu kasoo shaqeeyay laakiin isaga waxa loo qorayaa 3/3 halka laga rabay 5/6 3/3 baa loo qorayaa laakiin call marka shuruudii kale uu soo buuxiyay aan soo sheegay kasoo qaadba wuu leeyahay call laakiin maalinta uma laha call lama soo wacay maalinta waxaa la soo wacayaa maalintii loogu talagalay oo loo qorsheeyay markii koowaad inuu call la siiyo oo taasoo waxa weeyaan yes baa loo qorayaa laakiin waxa weeyaan maalintaas waa February 23 baa loo qorsheeyay wuu sugayaa marka callkiisa meel baa loogu kaydinayaa markii hore waxa lagu talagalay markuu taskiisa lixaad dhameeyo oo kasoo baxo shuruudihii inuu callka labaad u helo markaas saas waa leeyahay marka qof kasta uu ku xisaabtamaya markuu callkiis uu bilaabo taskigiisa ugu horeeya waa loo soo dhigayaa sidana arkayso maalintaad leedahay callka koobaad ilaa maalintaad leedahay callkaaga ugu dambeeya so waa ku xisaabtamaysaa uun yani kugu keenin muran inaad tiraahdo hadhow tole waan dhameeyey callkii layma siinayo haddii kii hore aan misgareeyay kii labaad layma siinayo marka keliya uun waa inaad ku xisaabtantaa screenshotkii ama tabletkaagii lagu soo diray ee xogtaadu ahayd marka maalinta koowaad sidaa usoo dhigtay taskiga oon kuu qorinaaba intii 24 taskba gudahooda
muddadaas xilliga callka u leedahay Yeah. aan kuu qorshaynayba ma garanaysaa insha allah marka waxaa reportkaaga u fiirsan doonta and waxaa la sameynayaana waqti waa lagu of course coachku kusoo wacaya laakiin fariin baa lagu soo dirayaa fariinta lagu soo diro waxaa sameynaysaa shuruudu isaguna leeyahay laftirkiisu tusaale coachkii tusaale marka maalinta call u leedahay oo listka lagugu soo diraya groupka ka arki doonta waxaa la odhanaya magacaaga arki doonta waxa weeyaan inaad coachkii uu kusoo wici doona amba advisorkii amba macalinkii waxaa sameynaysaa marka adigu waa ka warhaynaysaa maalintaas maalin ka hor baa lagu soo sheegaya waxaad sameynaysaa subaxii baa soo galaysaa waxaad raadinaysaa fariintii coachka amba fariintii advisorka marka waxay odhanayaan asalaamu calaykum congratulations you earned a call I want to practice with you marka waa inaad 3 saaco gudahood coachka kaga soo jawaabtid haddaanad kaga soo jawaabin 3 saaco gudahood fariintooda kaas way kaa gubanaysaa supervisorka team baa lagugu celinayaa haddana waxa weeyaan shuruudihii soo dhamaysid haddana callka waa laga yaabaa in kaa gubto marka 3 saaco gudahood fariinta coachka ka jawaab haddii coachka kusoo diraan fariin idhahdaan waxaa rabna inaan kusoo wacno ka jawaab waxaad tahda haye waqtigaasaan haleelaya marka coachkana wuxuu odhanaya waqtigaasaan haleelaya marka waqtigii baa qorshaynaysiin and isla markaana haddaa balan lagu qabto haddii 10 daqiiqo ku dhaafto oo tusaale in badan bay aniga igu dhacday because scheduleskeen waa iska mashquul qof baan la balansanaya 4 kale in call la sameeyo iyagana waxa waay berito la 4 sax weeyaan 4 markii 11 markii gaadho 4 mir 11 minutes haddii 1 minute habsaantid waxaa odhanayna sorry I'm sorry sida ninkan oo kale agan laalaho waqtigii ku dhaafay supervisor teamka la xiriir marka kale soo didaa laakiin marka labaad waxaan arkay badana qofna maba habsaamaba marka saas so markaas keliya un adigu waxaa isku daydaa un inaad online ahaato ood ka warhayso telegramkaaga iyo whatsappkaaga labadaba so inay fariin kuu timi weliba fariinta waxay kaaga soo dhacaysaa qof kasta kuma soo diri karo qof kastoo kula soo hadlaya wuxuu isticmaalayaa logada sidoo kale magaciisuna uu ku qoraya so waad xaqiiqsan kartaa marka kamara iman karo wax murana inaad tiraahdo laynama soo hadlin ama qof message imu soo diray ama qofkii messagekay soo diray maan aqoonsanin صح isla markaa waxaa samayn kartaa groupkii telegramka haddaad gashid ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kaa codsado waa laga yaabaa isweydiisid waay sidaan garanaya kii macalinkii kii advisorkii kii coachka how do I know kii soo wacayayo badana coachka amba advisorka calaamadan baa u saaran logadan iyo magacooda okay haddaa groupka gashid tusaale iminka haddaa groupka gashid oo automatic iqra gudihiisa oo furtid xagga sare settingska taabatid waxaa arki doontaa meel magac qof walba oo ka tirsan groupka waxaa raadinaysaa kay magacooda ku aqoran yihiin coach amba advisors ku save garee numberkooda save gareeba haddaa aragtid advisor amba coach save garee numberkooda waxaa ka helaysaa memberska groupka dhexdiisa advisors iyo coachkana way rabaan inay practice badan kula sameeyaan laakiin waxaa iminka shuruud jirta kuma soo wici karaan amba kulama hadli karaan wax ka baxsan dee waqtigii laydin qabtay marka maadaama ardayda badan yihiin oo waqti ku socono adigana rabno inaad dadaashid in badan hadduu tusaale coachku kula hadlo callkii dhamaysaan mar labaad laga yaaba in istiraadid maanta balaan iska waca coachkayga coachku wuxuu oranaya raalahow waan rabaa inaan anigu waan jecelahay dhammaantiin inay la hadlo I love it practice laakiin shuruudaha xiriya nidaamka supervisorskan raacaya waxa weeyaan kaasina magacyada laysoo gudbiyoon iyo ardayda dadaashoon ayaan la hadlaa marka dadaalo xaggaas kala socda insha allah marka gruubyadana waqti bay leeyihiin sidaa ula socda waqtiga si fiican uga warhaya waqtigu tusaale 4 cisho xagan ku qoran wuu furan yahay groupku 3 cisho way xiran yihiin waa la soo dhigi doonaa stickerkan isla markaa maalintii furan yahay groupku maalinta sabtida axadda isniinta arbacada waxa waqti buu leeyahay marka laftarkiisu makaa waqtigaas marka waqtiyada groupku leeyahay waa 3 shifti oo shiftiga koobaad waa 10ka saacada East Africa waxaana la xirayaa 1:00 waa maalinimo halka gelinka dambana la furayo 5 saacada East Africa lana xirayo 6 sidoo kale waxaa jirta waqti shifti saddexaad oo ku soo kordhinay oo ah 9ka ilaa 9:00 soo qof walba wada haysataa waqti I think inaad xilliga wada heleysaan oo qof walba ka faa'iideysan karayo soo aad u maasantii waqtiga si fiican u ilaashada. Thank you so much to you for watching this whole video. Thank you, Supervisor Sagal. You're welcome, Coach. Thank you, guys. So see you next time. If you have any questions, please contact us. Assalamu alaikum.